Manchester City ciyaaryahanka ay danaynayso la yiraahdo Marco Cucurella ayaa wax la sheegayaa in maanta uu warqad codsi ah u diray kooxdiisa Brighton oo uu sheegay inuu rabo inuu ka tago kooxda. ciyaaryahankan ayaa waxa aad u doonayay kooxda Manchester City ma aysan qarsanin doonitaanka ciyaaryahankaasi kadib markii ciyaaryahanka Arsenal ku biiray Zinchenko oo baneeyay booska number 3 ay doonayaan in ciyaaryahankan uu buuxiyo la yiraahdo Marco Cucurella ayaa inta badan aad uga caraysnaa kooxdiisa Brighton maadaama qiimaha ay ku doonayso oo mid wali uu yahay qiimahaas oo ku istaagi kara in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City sida uu isaga u sheegay in ay tahay riyadiisa inuu ku biiro kooxdaasi Man City. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninkii la yiraahdo Joan Laporta ayaa ka hadlay ciyaaryahan Frenkie de Jong oo sheegay in ciyaaryahankaasi uu yahay ciyaaryahan Barcelona ka tirsan ciyaaryahankan uu doonayo inuu kooxda sii joogo ayagana ay doonayaan inay sii haystaan ciyaaryahankaasi sidoo kale wuxuu qiray inay jiraan dalabaadyo soo gaaray balse wuxuu sheegay inuu yahay ciyaaryahankooda oo sii ahaan doono wuxuu kaloo cadeeyay in salariga problem uu ku jiro kooxda Barcelona ayaa loo ogsoon yahay in ciyaartoyda qaar ay awoodi lahaayeen inay mushaar bixiso balse waxay dhaheen wax walba oo awoodno inuu sameeynaa si aan u sii haysano ciyaaryahankan la yiraahdo Frenkie de Jong ayaa la xiriiriyay kooxda kubadda cagta Man United ayaa dhowr ciyaartoy la saxiixatay balse waxa laga warhayaa numberka 12 oo Man United inuu banaan yahay balse ciyaartoyda hore u timid aysan wali qaadan numberkaasi oo la doonayo in ciyaaryahankan la siiyo sida ay sheegayaan warar kala duwan balse ciyaaryahankan ayaa u muuqday inuu Barcelona sii joogo maadaama uu rabo inuu Barcelona sii joogo Barcelona ay doonayso inay sii haysato sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaanu ku jirnaa wararkeeda waxa kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa danaynaysa ciyaaryahan Cesar Azpilicueta maalmaha soo socda ay doonayaan inay dalab ka gudbiyaan ama ay Chelsea wada hadal la furaan si uu soo wareegaan ciyaaryahankaasi waxa la sheegayaa Azpilicueta inuu danaynayo inuu kooxda ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona balse waxa la sheegayaa in maadaama Azpilicueta wax badan uu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Chelsea oo kooxda Chelsea oo aad u qiimeynayo balse ciyaaryahanka ayaa wali danaynaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona waxa la sheegayaa in labada kooxood ay ka wada hadli karaan inay ku heshiin karaan ciyaaryahankana isku madayo inuu kooxda Chelsea mataqaana ku dhigo inuu baxo ama uu codsado in la fasaxo balse sidoo la sheegay ciyaaryahanka ayaa danaynaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa sidoo kale la saxiixatay ciyaaryahan la yiraahdo Julius Koundé oo difaac ahaa oo kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla ciyaaryahankan ayaa Chelsea sidoo kale ay danaynaysay balse Barcelona ayaa ka dulqaaday heshiis wuxuu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ilaa iyo 2027 ciyaaryahanka xagaagii la soo dhaafay ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee la yiraahdo Nuno Tavares ayaa soo warinaya inuu ku wareegi doono kooxda kubadda cagta ee Marseille ee ka dhisan dalka iyo Faransiiska ciyaaryahankan ayaa kooxdaasi ugu biiri doona qaab amaah Nuno Tavares ayaa Arsenal qaab ciyaareedkii sanadkii la soo dhaafay ayaa wuxuu isugu jiray mid fiican iyo mid xunba qaybta hore ee seasonkii la soo dhaafay Nuno Tavares markii uu dhaawac ku maqnaay ninka la yiraahdo Trentini ayaa booskaasi si fiican u ciyaaray balse qaybihii dambe horyaalka sanadkii la soo dhaafay 2022 ayaa ciyaaryahan qaab ciyaareedkiisa aad ugu liitay isagoo qalqal far badan ay ka muuqatay balse kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxa la soo wareegtay ciyaaryahan la yiraahdo Zinchenko oo ka ciyaari kara booska number 3 sidoo kale ka ciyaari kara qadka dhexe kaasoo la filayo inuu buuxiyo booska Trentini haddii uu dhaawac ku maqan yahay balse waxa la sheegayaa Arsenal inay danaynayso in ciyaaryahankani ama ku dirto la yiraahdo Nuno Tavares waxa la sheegayaa in ciyaaryahankani uu ciyaari doono kooxda Olympique Marseille sanadka soo socota sida la rajaynayo waxa la sheegayaa in heshiiskiisa uu ku joogo Marseille oo gaarayo muddo 2 sano ah sanadka soo socda 2023 iyo 2024 sidoo kale waxa la sheegayaa in heshiiskiisa ay ku jirto inay kooxdaas iibsan karto kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa heshiis amaah waxay ku dirtay ciyaaryahanka Joy Rodon ciyaaryahankaasi ayaa ku biiray kooxda Rennes ee dalka Faransiiska kooxdaas ku ciyaarta horyaalka Ligue 1 ciyaaryahankan ayaa amaah ugu tagay kooxda kubadda cagta Tottenham isagoo heshiiskiisa lagu daray
in kooxdaasi ay iibsan karto 20 milyan oo euro balse xilliyadan dambe waxaana suuq aad kaga muuqan kooxda Chelsea oo lala xiriirinayo ciyaartoy dhowr ah inay soo iibsan doonto balse ilaa hadda ma jiro ciyaaryahan si cad loo sheegay oo lala xiriirinayo kooxdaasi inuu dhawaanahan ku soo biiri doono balse waxaa la sheegayaa in kooxda Chelsea ay ciyaartoy qaar iska fasaxi doonto intiisan ciyaartoy la soo wareegin waxaad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka iyo la socoshada janaalka fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar aad baad u mahadsantihiin